sheegi jiray oon ka maqlay adna afkeeda 2% baa kristana bay tiri 2% baa dadka Somaliland degan ama waqooyiga Soomaaliya 2% baa kristana that means 4 milyan 80,000 oo kristana ayaa Somaliland ku nool afkeeda ka dhageysanayna waa dhageysan doontaan intaas rabaa inaan ka hadlo idinkana waxaan ka rajeynayaa inaad farxadeyda ila wadaagtaan oo qof kasta gaarsiisan hadalkayga waan salaamaya waxa igu horeeya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu ka madax yahay sanadkani ururka IGAD warqad buu maanta soo saaray inkastoo inagu raagtay maanta soo saaray uu cadeeyay uu yiri wadamada IGADka ku jira biyahooda dhulkooda hawadooda midna lagu xadgudbi karo cid ku xadgudbi kartaa ma jirto that means biyaha Soomaaliya lagu xadgudbi karay isagoo ah Jermanka IGAD ayuu soo saaray maanta aad iyo aad baan kugu mahad celinaya madaxweyne Geelle adiga iyo dawladaaduba aad iyo aad dad baa lahaa Ismaaciil Cumar Geelle qayb uu ka yahay waxan oo halka Facebook aan ka daawanay oo meel walba ka hadlayay oo caytamay oo Ismaaciil Cumar Geelle caay dawladda Djibouti xiriir dhaqaale bay leedahay Ethiopia waa partner waxa ka dhaxeeya wax fara badan dikada Djibouti waxay u adeegtaa dalka Ethiopia 120 milyan saddex shifti baa la galaa 24/7 way shaqaysaa dikadaas waxa uu shaqaysaa waa Ethiopia waa kalyanti bay u tahay Djibouti kalyantiguna ninka kalyantigina waa kooni baa la yiraahdaa marka kalyantigeeda inay ixtiraamto sax weey oo ila habsaanto waa sax laakiin Djibouti baa ogolaanaysa in boor kale agteeda laga furo nagas doorka iyo ku faraxsan qofka waxa ku sheekeenayo habeenna ma jiri waayo hadduu Ismaaciil Cumar Geelle ogolaado in si boor kale agtiisa laga furo that means kana xidhmaaya kadibna daway daaduumayaanba qarankani Djibouti jiriyo maayo dikadaas u shaqaysa halkaas u shaqaysa marka ninka halkaas u shaqaynayso miyaa la oran karaa dawladda Ethiopia uu raacsan yahay waa ridiculous waxa ku sheekeynaysan qaar badan oo illiterate juhala nin walba telefoon buu haysta saano haysto wuxuu doono ku hadlaya laakiin wixii aqli la uma la qaadan kara anigu markii hore waan sheegay Ismaaciil Cumar Geelle inuu qayb ka ahayn laakiin reerkii uu xambaarsanaa baa qaniinay reerkii uu dhabarka ku sitay in 10 sanadood u sheegay in la wareerkan abaal male waanaga dagaalka la galay dalkiina waxba nagama haysin waana nu degannahay waana nu ku qatannahay aan lahayn oo dadkayga bay cashuurayaan maanta ayuu ogaaday maanta haddii meel walba laga caayo Ismaaciil Cumar Geelle oo reerkii uu tunka ku sitay habara wal meel walba ka caayaan oo Hargeysa ka caayaan gabiile ka caayaan telefishinada ka caayaan waka abaalku waxaan ku sheegay wata waxaan ku sheegay taasan si garanaya anigu qaamay qulub al-aarifun la uyun wa ina wax fahamta halkan waxa ka soo socda ayda inta leeg wax ku qalma wax walba wadu samaysay godob walba wadu gashay reerkani tunka iyo laabtaad ku sidatay dhaqaalihii Djibouti waad ku wareejisay miisaaniyadii Djibouti iyaga lacagteeda ku saxan madaxtooyada iyaga jooga jaranaarada iyo korneelada ciidamadu waa iyaga safaaraduhu waa iyaga intaasoo safiir bay leeyihiin golaha baarlamaanka way ka buuxaan wasiirada tira male hal kiiloomitirna kama degana Djibouti si fiican maanta waad arkaysaa waxa dhacaya ayda iyo waxa ku dhacaya reerkaad ka dhalatay adiga oo maahina waxa ay ku socoto waad arkaysaa 10 sano ka sii digay waxa Ismaaciil 10 years baralka soo fadhiyay Soomaalina marqaatayga tahay oo la wareer kana abaal male baray ku caaya baray ku ceebeynaya war ka joog laabta ku sudan laakiin maanta hadaad aragtay waa okay mar qof walba mar oo muddo arkaa dhibaatada haday ku taabatay reerkii tunkaad ku sudatay ay dhabarka ka qariineen oo adigoo ogeyn ay Ethiopia tageen oo dhulkaagii heshiis kula soo galeen oo maanta ogaatay waa war fiican aanu haday daabtaan dawlad baa la qabtay dawlad ka daba tagi doonta hadii la yiraahdo rajeynaya taas waa taas Cabdiqani wasiir Cabdiqani aad iyo aad meeshii aan doonaynay maanta joogta waxa tiri dadkayga la dareenahay dadkan matalan la dareenahay waxay diidayaan ma diidaya dhulkayga Ethiopia uma ogol warun hadaa la dareenta anaguna kula dareen baan nahay wax kasto dambiyood geysatan xagayga xafis baad ka tahay
soomaalina cafis baanu ku weydiinaynaa waa sax arrinkaas waxay doonayeen iyagu si kale inaad u hadasho oo tidhaahdo sidii indha indho daarood baa nagu soo duulay indha indha yidhi inaad tidhaahdo ciisaa nagu soo duulay kaa doonayeen laakiin way suurageli weyda ragannimo kuwa kale ee samaroon ee wasiirada ee ku hadhay somalilan ama baarlamanka somalilan ku jira iyaga laftooda waxaa laga rabaa inay dariiqaasoo kale maraan dariiq kale u bannaani ma jiro kuwa muqdisho jooga ee gobolka awdal matalaay shir bay iskugu yimaadeenoo way caddeeyeen warkoodii laakiin kuwan hargeysa jooga weli may cadday waddo kaloo u bannaani ma jiro dadkooda inay la dareen noqdaan mooyaane halkay soo taagaan oo dadkooda la dareen noqdaan unba u bannaan waddo kaloo u bannaan ma jirto islaantii cunsureed ahayd ee ku wareysanaysay ee kulahayd waxaa lagu siiyey kursi wasiir baa lagaa dhigay kulahayd wayna garanaya waxaan weydiinayaa ninkani dhulkuu degan yahay deegaanka ayuu ka soo jeedaa dhul aad siiseen iyo wasiir aad siiseen midna toona ma jiree waxbaa la isku daray social contract bayd hadday wax garanayso islaantii microfonka sidatay waxaan ku weydiinayaa jabuuti wasiiraad ku leedihiin madaxtooyada wasiirka waa idinka baarlamankaad ku jirtaan golaha guurtigaad ku jirtaan meel walba waad ku jirtaan saraakiisha ciidankaad ku jirtaan dalkaa ma degtaan inay islaantaas ii soo jawaabto waan jeclaan lahaa dhulkaaad sidaa ku tihiin ee lacagtooda ku saxiixan tihiin eed baananka haysataan ee dhaqaalihii dalka oo dhan meel kastoo dhaqaala haysataan ma degtaan horta idinku su-aashaanaad ka soo jawaabto waan jeclaa haddaad caqli leedahay haddaad leedahay haddii microfonka qabiil lagugu iibiyey wixii aad weydiinaysay ninkaas wax laga naxay aheed oo laga yaqasoodo wariye caynkaayoo qabyaaladdu yani qabyaaladii baa ku biyo dhigtay waxaad ku hadlaysay qabyaalad ba ha la idhaha ku biyo dhigtay markaa dadka caynkaayo waxba lalama sheer garayn karayo dowladna laguma wadaagi karo dalla laguma wadaagi karo talena laydinlama wadaagi karo haba yaraatee wax lagula wadaagi karaa ma jirto taana intaas ayaan kaga baxaya jawaabban ka sugaya islaantii microfonka sisat waxa kale oon la yaabay islaantii adna waxa la weydiiyey somalilan dadka kristanka waxay gabadha wariyuhu weydiisay boqolkiiba 89 baa muslima 2% waa kristan somalilan cawdoon baa waxaa sheegi jiray islaantii adna waxay tiri 2% baa kristana somalilan 2% waa 80,000 oo qof baa iya kristana hadda inaad ka fadhiisataan la qaatay siyaasadda iyo talada somalilan dadkan adafkooda ku hadlayso inaad ka fadhiisato ayaa la qaatay waayo wakhtigaagii waa dhammaaday da'dii diinkaad joogtaa tertos age baa la idhahdaa 100 waad dhaaftay dhowr iyo 70 sano horteed inay cigaal markuu reserve area ku wareejinayay dalka kenya gacan yaraad ahayd waad la joogto ninkaagii u ahaa at that time haddaad 30 jir ahayd maanta 103 baa tahay da' baa tahay tertos baad u ekaatay waad arkaysaa baalka la idhaha dinosaurs baa la idhaha baa jira da'diisa lama qiyaasi karo intuu yahay laakiin sida uu ku dhasho uma ekaado wax kaloo ekaado wax kalood u egtahay adnaay sidaad markaa dhalinyarada ahayd ama caqliga faraha badan lahayd midwifeka ahayd sidaad u ekeeduma ekid maanta jirkaagi waa baabay erosion baa la idhaha qofku sida dhagaxa ayay lisbaan dumarku dadku way lisbaan oo way baabaan waad baabaaday adiguna isbaabiyo dadka hor tagin oo idaacadaha tagin oo idaacadaha wareystaa oo dhan oo waxaad doontaa ku hadlin isbaabiyo dibdamba yaa lagu arki adigana yaa dibdamba lagu arki maanta farxaddayda lama qiyaasi karo aad baan idiin salaamayaa soomaaliya meel kasta oo dunida joogtaanba codkayga inaad meel walba ii gaarsiisaan baan jecelahay aad ba farxaddayda darteed dadkana saxaabta nahay inaad ii faafisaan baan jecelahay anuu lacag kuma qaato dadka loo saara iyo subscribe iyo waxaas yidhahda mayi dhaqaalo kuma laakiin codkaygu inay dadku maqlaan halka aan joogo positionkayga inay dadku ogaadaan baan jecelahay halkii aan joogay 10 sannadood ismaaciil margeelaal uga digayeen adeerkay maanta inuu wixii u muuqato oon guulaystay baan u jeedaa macnahaygu waa taas aad baan idiin salaamaya